Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bulshadeeda Soomaaliyeed ee sharaftay qiimaha badan meel kastoo dunida ka joogtaan waan idin salaamay. Waxaan idin leeyahay sama ku waara saaxiibayaal. Maanta maxaan ii wadaa maanta arrimaha macallin jirin waxaan ka hadli rabaa arrimaha maalmaha aan bahaystay meel kasta kaaga hor imaanaya ee la dhahayo qof Soomaali ah ayaa wax ka sheegay nabiga cali salaam. maaragtay khayr khalqillah ilaahay qalqigu untay qofku ugu khayrka badnaa nabigeena sharafta badan cali salaam ayaa qof af Soomaali ku hadla wax ka sheegay ayaa dadku meelaha wadwadaan bulshadeenu ka hadlayaan. Marka arrintaasi ayaan rabay maadaama aan bulshadii dhinacay uga jiro inaan maxaa la dhihi jiray wixii aan ka aragtidayda ah aan ka hadlo iyo maaragtay sida ila tahay ka islaam ahaan iyo ka bulsho ahaan. Waxaan leeyahay horta waa ka xumahay number 1 qof af Soomaali ku hadlo in la dhaho nabigeena cali salaam ayaa wax ka sheegay aad uga xumahay. Midda labaadna nabigeena cali salaam waxaan dhihi rabaa maaragtay nabigeena cali salaam macayno maaragtay ma qabato mana cayno ma qabato sallallahu alayhi wasallam uu ka dhan yahay waxaasi maaragtay xumaan dhan wuuna ku hufan yahay ilaahay abuurtay ee koonkan dhan lahay ayaa midka ugu khayr badan qalqigiisa ka dhigay sallallahu alayhi wasallam. Marka midda kaleeto waxaan ka hadli rabaa ka bulsho ahaan anaga sida bulsho ahaan aan u jawaabnay bulshadeena inta badan aan arkay maaragtay u jawaabeen. Waxaa dareemayaa inaan bulshadeena maaragtay xoogaa wacyigeena oo hooseeyo oo maaragtay aan caay ku jawaabayno iyo aflagaada inaan ku jawaabayno. Qofkii nabiga caayay xagga dhig asaga waxa waaye qofkaas waxa waaye asaga caayana dhihi karnaa maaragtay asaga dhibban ayaan dhihi karnaa waa qof dhibban maaragtay nabigeena cali salaam caay uu ka dhan yahay uuna ka nasahan yahay sallallahu alayhi wasallam. Ka bulsho ahaan sidaan u jawaabnay bulshadeena maaragtay waxa waaye in badan runtii aan arkay mid aan fiicnayn inay bulshadeena aflagaado ku jawaabno aflagaado waxba ma xalliso mid kale diin ahaan maba fiicnaba in la caaytamo qofka muslimka oo caaytamo dadka muslimka ay caaytamaan wax fiican maaha. Marka qofkii nabigeena caayday waa taasa in si cilmiyeysan iyo si maaragtay caqliyeysan looga hadlo waa wax fiican waaye oo maaragtay laga bari noqdo laakiin in la caaytamo wax fiican maahan. Waxa dhacday nabigeena cali salaam xilligiisii Caaisha iyo asaga isla joogeen marka qolaa waxay ku yiraahdeen assalaamu calaykum ay ku yiraahdeen oo ula jeedeen geeri korkaada ha ahaato marka nabigu wuxuu ku yiri wa calaykum ayuu ku yiri Caaisha waxay tiri calaykum assalaam wa nacala ay tiri naclad iyo geeriba korkiina ha ahaato ay tiri. Nabiga cali salaam Caaisha uu ka diiday oo muxuu yiri muslimka mid af xun ma ahan Caaishooy rasuulka ilaahay miyaadan maqlaynin ay tiri Caaisha radiyallahu anhu nabigeena cali salaam wuxuu yiri waan maqlaayay wixii aan aniga iri miyaadan maqlaynin wa maxaa la jiray wa calaykum ayuu nabigu ku yiri waxa sheegteenba korkiina ha ahaadeen ayuu ku dhahay. Marka nabiga cali salaam Caaisha uu ka diiday inay maaragtay la tirsato oo muxuu ku dhahay maxaa la jiray sheeg wuxuu ku dhahay muslimka mid af xun ma aha. Marka waxaan rabaa bulshadeena Soomaaliyeed inay maaragtay wacyigooda kor ahaado intaasna culimadu way hadlaan oo maaragtay wacyi naguma yara ma fahmay aniga maaragtay in qofkii la caayo waxaas ma fiicno in si cilmiyeysan looga hadlaha laakiin ina video la fiirsado maanta dhan waa waxa maaragtay waxaan u imaadeen oo in wax xun waxa wixii ka xun oo qofka dadka ay ka soo hadlaan isku biimeeyaan waa waxa keenay waaye maaragtay inay wixii xunba maaragtay si dusqiga aan maaragtay ku daadano oo haddana aan wax fiican aan sheegaynin bulshadeena waxa dareemayaa inay wacyi ahaan maaragtay oo hooseeyaan qastan dhalinyarada. Marka aad iyo aad uga xumahay inuu qof af Soomaali ku hadlaa
uu ma aragtay uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu wax ka sheego. Midda kale tan maxaa waaye ilaahay baan u daynaynaa meesha mari doonto iyo ma aragtay qofka ilaahay baan u ag filan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.